mar walba hooyaday waxay ula talinaysay inaan aniga guursado aan reer yeeshto si awlaadeeda ay u aragto anigoo ka duulay riyada hooyaday inaan u rumeeyo aabbeeyna uu i dhahay shaqayso markaas waxaa go'aansaday inaan shaqaysto oo reer yeeshto oo nin isku filan oo noqdo waa gartay jacaylka iyo catoosharta isku yihiin aniga jacayl mar hore ka qalin jooyay jacaylka maslaxa ka hor maslaxa wiilka ma jeclaat aniga maxaa wax u jeclan bini aadam iimi ka hor hal yadan yareed ama aragta jaanis ugu samir waay jacaylkaadii kugu xanuunka badnaa ama kugu horeeyay qisay kamid ama ma taaban kartaa aniga maslaxa ka hor horta xiriir badan waa lahaa gabdho badan waa is jecleen maadaama kuwa qaar shaafta raadis ay ahaayeen anigana oo qof shaafta raadina aan ka helin jacaylka ugu xanuunka badnaa waxay ahayd gabar xilligaas 2018 aan jeclaa ayaa waxaa lahay ninaa lagu daraa ama soo doono aabbeeyna wuxuu dhahay xilligaas hadda naagma lagu daraayo bax shaqayso jacaylkaas ay ugu xanuun badnaa maxaa dareentay markaas haweenkaas muhurd madaxa ay xanuun haweenkaas kaliya mise dhowr isbuuc taleefanka xataa waa iska dami meela dhig kadib maxaa dhacay kadib go'aanaa qaatay inaan shaqaysto oo ana isku filnaado waalidkay maadaama aan ka maarmin laakiin aan aniga noqdo maanta nin asaga gacantiisa wax ay ka baxaan gabadheedu ku jeclayd way i jecladeed kadib xamaraa imaaday reeraa hadda leeyahay alxamdulilah reer ka hor waxaan ka rabnaa gabadhii maadaama idinku jeclayd soo ina dhahdo ma ahayn ninkaana jecelnahay nin kale ma guursanaayo waalidkeedaa ku khasbaa xagga waaliduu ka imaanaya amarka okay gabadhi halkee ku dambeysay waa la qabaad waa la guursaday magaceeda in halkaa ka sheemara kadib jacaylkaas jacayl kale ma samayso jacayl kale ma samayno maslaxa la waa jacaylka ugu dambeeyay هذه مصلحة وخابنا اسكو برتين سيدا دادكو اسكو برتانا اسكو برا سي اسكو برتين عايا واركا معناها ما التليفون اسكو برتين ما حفلة كلونتين ما وحاولوا جيدا يا من اسكولا وديغاني سيان اسكو برتين ساسا اولو جيدا اني waxaa isku baranay taleefan marka kadib waa kulanay waa wada hadalnay jacaylka ku horeeyay anaa ku horeeyay maadaama anay mar walba aan jeclaa hooyadeyna anay wiil kale bas wiil u shanta caruur kale ee gabdha ahaayeen mar walba hooyaday waxay ula talinaysay inaan aniga guursado aan reer yeeshto si awlaadeeda ay u aragto anigoo ka duulay riyada hooyaday inaan u rumeeyo aabbeeyna uu i dhahay shaqayso markaas waxaa go'aansaday inaan shaqaysto oo reer yeeshto oo nin isku filan oo noqdo okay ma laga yaabaa inaad guur kala samayso qof labaad iyo saddexaad iyo afraad guursato aniga guur kale inaan sameeyo ma rabo ilaa nin hanti ka yeelna aan noqdo gabdho badan iyo wiilal badana waxay u arkaan naag kale ma guursanaa deelo canaadsi waxa la ma jira qofka asagaa naftiisa xur u ah asagaa go'aan gaaray nafteyda anaa xur u ah anaa maanta boqolow ah anaa maanta go'aan gaarayo anaa maanta go'aanka uu iga go'aa maadaama reer yeeshtay oo reer cusub uu yahay hadda inaa qof kale aan guursado ma rabo qofka hadda aan u baahna waan haystaa waxaa hadda kadib aan raba horta inaan noqdo nin maanta magac waa sameeyay alxamdulilah nin maanta magac iyo maal leh reer leh maanta qoyskiisa iyo familkiisa iyo reerkiisa iyo ummadda Soomaali wax u taro ma ahan haddii maanta magac iyo xoolo lacag heshay inaa naaga badan aa guursato ama inaa dhahdo waa guursanaa guurka waa xalaal aniga horta marwo waa qabaa marwo labaad inaa hadda aan sameeyno diyaar ma u ihi taasna xumaata ma aha cabsi ma ahan canaasi wax ma jiro I don't care anaa xur ah gabdho kale ku soo ma jiraan oo ku dhahay actasho lagu labeeso ama saddexayso gabdho kale way jiraan laakiin aniga hadda no jaanis ma u haayo inaa hadda horumarkii aa ka fikiro hooyaday iyo aabbey inaa xaj ka geeyo inaa maanta hanti aa yeeshto caruurteyda beri aan dhali doono in dhaxal ugu tagaa u baana